Filimkan wuxuu ku bilaabanayaa iskuul lagu magacaabo Tagji Secondary waxaana aragnaa macallin cusub oo lagu magacaabo Henry kaasoo maamulaha iskuulka markuu ka sii fiidaysa uu aqbalo maalintiisii ugu horreysana uu soo shaqo galaa waxaana loo sheegaa galaaska uu gelaya inuu yahay mid aad u dhib badan wax walbana waxaan ku aragnaa indhaheena kaasoo qaar hurdaan kuwa kalena ay iska tumanayaan kaban halka kuwa kalena giima iska ciyaarayaan kuwa ugu sii daranna fasalka ay ku dhex karsanayaan cuntaba umana malaynayaan inuu meesha taagan yahay macallin kadib Henry wuxuu bilaabaa inuu soo jeediyo laakiin kuwana kuwa soo jeesanaya maaha kadib samarada ay wax ku qoraa ardayduna ku qoslaan fartiisu akhrina awgeed kadib wuxuu samarada ku qoraa nambarkiisa ardayduna soo qaraacan waxaana uu sheegay inuu kalaas isaga baxo mid kastaana wuxuu ku noqdaa hawshuu hayay kadib wuxuu damcaya inuu mar kale soo jeediyo waxaanu soo qaadaya canjir kaasuu ka sameeya shimbirlaaye kadib wuxuu ku dhuftaa gargaarka degdega ee dabka waxaana ka soo daataa iyo ardaydiina way ka kala cararaan goobahoogii isaguna dalaayada ayaabuu hore u soo qaatay kadibna wuxuu ku dhahaa ku soo dhowaada galaaskayga macallinku wuxuu ahaan jiray askari hore waana sababta uga yaabsaday maalintii koowaad ee fasalka waxaana la soo gaadhay wakhtigii bariiga ardayduna waxay caabisay sigaar kina waa jaag waana hogaamiyaha tiimka waxaanu karaash ku yahay gabadha sawirkeeda hayo waxaana dhigataa galaas kale kadibna mid ka mid a asxaabtiisa ayaa kala booda moolka isagona asxaabtiisa kala tusaya isla markaana waxaa soo gelaya qolkay ku jireen koox kale oo basketboolka ciyaarta waxayna ka saarayaan qolkii ay ku jireen kadibna waxaa aragnaa jaag iyo asxaabtiisa oo yimaada inay daawadaan kooxda basketboolka kadibna jaag ayaa ku tuura dhaladu cabitaanka ka cabeeyey waxaana ku dhacaa mid ka mid a ciyaartooyda iyagoona bixi rabana waxaa aragtaa macallimada kooxa kale oo lagu magacaabo mislinyaag iyadoona ku ciqaabtaa inay qoraan xeerka iskuulka u yaala jaagna markuu dhammeeyo wuxuu ugu soo dhex ridaa xayawaan yar wayna ka naxaysaa xaggaasi macallimadu waraaqii oo dhan ay ku daadinayso shaah maalintii xigtana waxaa yimaadaa rag ka socda wasaaradda waxbarashada waxaana aragnaa Henry oo isla xilligaas soo geli rabaa heesadiisa ardayduna waxay u sii dhigeen dabin kaasoo ay caag biyo xagga sare u saareen markuu albaabka furana way ku soo daadanaysaa laakiin waxaana ogeyn ardaydu inuu Henry ahaa askari hore waanu iska tuuraya caagii markuu soo dhaco kadib wuxuu ku dhacdaa mid ka mid a ardayda kadib wuxuu biloobaya heesadiisa waxaanu 3 su'aalood ka weydiiyaa sigaarka qofkii gartaana uu iska baxayo oo gurigiisa ayuu iska aadayaa ardayduna aad ay ugu farxdaa marka bariiga la gaarana jaagi asxaabtiisa waxaa dagaal dhex maraa kooxda basketboolka arrintaas darteedna jaagi asxaabtiisa waxaa laga yeeray iskuulka jaagna wuxuu u sheegay Henry inay taasi tahay cadaalad daro iyagoo kiyata lagu qaaday xeerka halka tiimkii kale aan waxba la odhan Henry wuxuu bilaabaa inuu arrintaa kala dhex galo waxaanu la hadlaa maamulaha Henry kadib wuxuu soo noqday ardaydiisa waxaanu u sheegaa inay arrinkan raalgelin ka bixiyaan waxaana la siinayaa fursadooda u dambeysay ardayda kale way ka wada bixiyaan raalgelin dhammaantood marka laga reebo jaag kaasoo isagu iska baxa Henryna habeenimada wuxuu bilaabaa inuu qof kasta noloshiisa wax ka ogaado maadaama uu iyaga aad u danaynayo oo uuna og yahay in mid kasta dhib haysto isagoo filashooda dib u baara ardaygan la dhaho Jordan asalkiisu waa Pakistani waxaanu ku nool yahay Hong Kong markuu yaraana wuxuu jeclaa heesaha waxaana asxaabtiisa iga imaan jirtay foodin codkiisa oo xumaa iyo midabkiisa oo ka duwanaa midabkooga Gladys waxa uu dhaqataa sida wiilasha aabaheedna wuxuu jeclaa in loo dhalo wiil iyadana muu dayan jirin saas darteedna waxay beddeshay shakhsiyadeeda waxaanay jecleed inay ka qayb gasho tartanka gawaadhida labada mataanaha lagu magacaabo Brisk Wang iyo Shrisk Wang waxay ku nool yihiin nolol faqiirtima hooyadoodna way ka tagtay aabahood waxaana guursatay nin taajira aabahoodna markasta uu cabsay wuxuu dilaa iyaga dhanka kale waxaa aragnaa Jack ma rabo inuu aado iskuulka waxaanu ka shaqaynayaa meherad yar waxaanu si keliisa u maqlaa niman ganacsata oo ka sheekeynaya iskuulkiisa Tagji kuwaasoo raba inay u beddelaan goob ganacsi maadaama ay tahay sanadkiisii u dambeeyey inta ku mashquulsanayn dabaaldega fardaha Jack wuxuu xadayaa bahalka miiska saaran laakiin nasiib daro waa la arkaa waxaanu amraa ninkan in la qaraaco Jack intii la qaraacay Jack ninka ganacsatada wuxuu arkaa Jack ay dhigiisa isagoona arkaa inuu ka tirsay iskuulka Tagji waxaanu siiya Jack dariskiisa waxaanu soo bandhigaa shaqo dhaga kale Henry wuxuu raadinayaa Jordan oo ahaa wiilkii Pakistaniga ah kadib waxaanu arkaynaa isagoo la bursanayo waxaanu soo xaday tigidh lagu gelayo bandhig faneed Henry ayaa badbaadinaya kadib waxay tagaan heebta waxaanu ku yidhaahdaa Henry ku soo bandhiga xaggan codkaaga kadib Jordan uu ku soo bandhigaya Henryna aad buu codkiisa ula yaabaa Jordan hadduu isu kalsoon yahay Henry isagoo raadinaya labada mataanaha wuxuu la kulmay aabahood waxaanu siinayaa talooyin kadib aabihii labada mataanaha wuxuu ugu yeedhaa goobtiisa shaqo waanay si xaal waraysanayaan ugu dambaynna way heshiinayaan Gladysna waxay walaalkeed ka yar u marinaysaa casharada kadib waxa uu yimaada aabaheed kaasoo keena makeup waxaanu ku dhahaa gabadh yahay wax marsa si lagu guursado iyaduna waxaas dhan dheg uma dhigto iyaduna xanaaqsan waxay qaadataa gaadhiga aabaheed waxaanay waddada kula kulantaa Henry kaasoo geeya meeshay jeclada tartanka gaadhiga waxaana aragtaa in aabaheedu la tartamayo waxaanu ku dhahaa iga ballan qaad haddii aan kaa badiyo inaad waxbarashada dhammaysanayso oo aan kuu guurinayo ninka rabo waxaana ku socdaan xawaaro sare kadib waxay soo gaadheen goob dad ka buuxaan waxaana shil ku gala aabaheed kaasoo garba ka dhaawacmaa kadib waxay u soo carartaa inay aabaheed badbaadiso isla markii waxaa soo gala gaadhi waxaanu jira gaadhigeeda Britanka iyaduna waxay ku badbaadaysaa hal talaabo ay qaaday aabaheedna wuxuu moodaa inuu jiro gaadhigii waxaanu idhaahdaa gabadhaydii iga raali noqo markasta waan ku danayn jiray waxaana maqlaysay wixii uu lahaa oo dhan aabaheed kadib ugu dambe waxay ku midoobaan xaggaas
Dhanka kale waxaan aragnaa Jack oo la jooga ninkii shaqada siinayay. Ninkan wuxuu ciyaaraya boxer, berrina wuxuu leeyahay ciyaar. Kadib Jack wuxuu ku dhahaa ninka iga soo horjeeda waa in lagu soo darto biyaha daroogo si aan u guulaysto. Waanu ka marmeeraya Jack arrinkaas, ugu dambeynna waa oggolaanaya. Henryna wuxuu tagaa guriga Jack, kaasoo ayeeyadii la noolaa. Henry ayaana arkaa inuu aad ugu fiican yahay ayeeyadii marka guriga la joogo. Ayeeyadiina ma ogo in laga soo eriyay iskuulka. Kadib Henry wuxuu isha ku qabtaa daraagaduu ninka kale ugu daraya biyaha. Jackna wuxuu arkaa in maandooriyo tahay mid aad u khatar badan. Kadib waxaan aragnaa Jack oo ku guuldaraystay arrinka, waxaana ciqaabaya ninkii boxerka ciyaarayay. Kadib waxaa yimaada Henry oo doonaya Jackna waxaan aragnaa inuu ku jiro armaajada. Kadib waxaa soo hor istaagan niman kale oo ciyaara boxerka, gebi ahaantoodna u tumaya. waxaana yimaada boolis, dhammaantoodna waa la kaxaynaya. Ninka boxerka ciyaarayana wuu beeniyaa inuu waxa u dhiibay. Kadib waxaan aragnaa Henry oo Jack tusaya ayeeyadii oo ku rufaadsan shaqada. waxaanu ku yidhaahdaa Jack inaad ku noqotay iskuulkii si aad u anfacda ayeeyada. Laakiin Henry muu ogeyn in laga duubayo markuu dagaalamayay, waxaanu ku faafay dadka. Kadib waxaan ogaanaa Henry inuu dhigan jiray iskuulka Taagji, waxaanu ahaa wiil dhib badan. hooyadiina way dhimatay, halka aabihiina ahaa cabtooy. kadib maamulihiisa ayaa u diraya Maraykanka, waxaanu halkaas ka biloomaya tababar askarnimo. kadibna si uu wax badan u faa'iido wuxuu ku soo wareegaa dunida oo dhan. ugu dambeynna wuxuu ku soo laabtaa Hong Kong isagoona yimaada iskuulka yaraantiisii. taasna waxay ku faaftaa ardayda oo dhan. ardaydii fasalkiisuna waxa uu ixtiraamaa Saa'id. Jack asxaabtiisuna waxay iska waraysanayeen inay imtixaanka gudbeen oo jaamacad ay wada tegeen. mid ka mid ah saaxiibada wuxuu ku fikiraya siduu imtixaanka u baasi lahaa, laakiin waxa uu iska dhaadhicinaya inaanu lahayn maskax wax qabata. kadibna wuxuu soo gataa kiniin xiftigiisa u roon, waxaanu isticmaalaa si xad dhaaf ah. maalinta xigtana wuxuu gelaya imtixaanka, waxaanu dareemayaa madax xanuun yar. kadib maalintii xigta wuxuu dareemaa daal saayida. mana tegay maalintaas iskuulka, waxaana Saa'id u sii xanuuna madaxa. kadibna wuxuu ku fikiraya inuu isdilo, waanu isdilayaa. dilkiisana wuxuu ku faafaa meel kasta, waxaana la dhahaya wax walba wax u sababa macallin Henry, qaabka uu ardayda wax u barayo. kadib wasaaradda ayuu soo hor fadhiistaa macallin Henry. kadibna wasaaradda waxaa ku tirahdaa qaabkaad wax u baraysa ardayda ayaa ka duwan qaababkii hore. kadibna Henry wuu isdifaacayaa, waxaana laga eriyay iskuulka. kadib ardaydu way ka xanaaqayaan taas, isagana waxay u jeclaayeen aad. waxaanu ku idhaahdaa dadaala si aan loo xidhin iskuulkiina, iyaguna way dadaalayaan. Henryna wuxuu soo diraa fariin taa isku meel isugu yimaadaan. kadib waxaa yimaada ninkii boxerka, magaciisna waa Chinyang. waxaanu ardayda ka ururiyaa moobilada, waxaanu ku soo xidhaa meel si aan imtixaanka u soo gelin. kadibna waxaa yimaada Henry isagoona ciidanka la dagaalamaya, waxaanu ardayda ka sii diinaya goobtii si ay u galaan imtixaanka. ugu dambeynna waxaa dagaal dhex maraya Chinyang iyo Henry. kadib waxaa ogaanaa Chinyang markuu yaraa inay Henry isku fasal ahaayeen. kadib Henryna uu dagaal dhex marayo, kaasuu ka jebinaya Henry Chinyang gacanta. Chinyangna wuxuu tumi kari waaya biyaanadu jeclaa. Henryna wuxuu hayay codad Saa'ida, waxaanu doonayay in mar kale ka arguto, laakiin Henry uu ka guulaystaa. miduu rabay inuu ku dilana isaga ayaa iska taga. ugu dambeynna ardayda imtixaanka way gashaa, wayna ku guulaystaan dhammaantood. iskuulkii Taagjiina wuxuu ka mid noqdaa kuwa ugu fiican filimkina. xaggaas ayuu ku soo dhamaanaya. haddana muuqaalka like saar. haddaad channelka cusubtina subscribe saar.